رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد هدي إلهي هذا سبحانه وتعالى maanta waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo xisnul muslim min adkaari alkitaab wasunna. kitaabkaasoo ah kitaab aad iyo aad u nafacaad iyo manfac badanba. xisnu oo macnaheedu ay tahay gabaati ama dhufayskii almuslim, qofka muslimka uu geli lahaa, oo min adkaari alkitaabi wasunna, dikriyaalkii iyo xusaskii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga markaa ku yimid. qofka muslimkaa inta adduunka uu joogo wuxuu khatar ugu jiraa shaydaanka. ileen ma raba wanaag badan inuu qofka muslim ka gaaro, dhib ayuu rabaa shaydaanka inuu dadka gaarsiiyo. sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay dhafays iyo gabaati loogu talagalay qofka muslimka inuu uga dhunto shaydaanka. ma aha meel la qoday iyo guri la galo, laakiin waa ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa inuu isku gabaatiyeeyo oo qofku marka uu isku wareejiyo. kitaabku wuxuu ka hadlayaa adkaar aad iyo aad u badan iyo ducooyin, weliba mar allaala marka xaajooyinka iyo dhibaatooyinka ay yimaadaan iyo mararka kaleba. waxyaabaha kitaabka uu tilmaamaya waxaa ka mida marka la hurdayo sidii loo ducaysan lahaa, labiska marka la gashanaayo, dharka marka la xiranaayo, marka musqusha la gelayo, laga soo baxayo, xabka weyseqaadka iyo marka loo socdo masaajidka, gurigaaga markaad gelaysay, markaad ka soo baxayso, mar allaala marka qofka waxyaaba dhib badan oo culays badan ay u yimaadaan, qofku markuu dambaabo, arrin markay ka cuslaato, daynta markuu gudi waayo iyo waxyaabo badan oo noocaas oo kale ayuu kitaabka ka hadli doonaa. markaan gudihiisa gaarnaan arki doonaa kitaabka sida uu hadlaayo. waxaan ka bilaabaynaa muqadamada. bismi illaahi araxmaani araxiim. almuqadima. ina alxamda lilaahi, mahad ilaahay bay u sugnaatay, naxmaduhu wanastaciinuhu, ilaahay waa ku mahadinaynaa, waana kaalmo weydiisanaynaa, wanastakfiruhu, waxaan ka dembi dhaaf weydiisanaynaa dembigii aan galnay, wanacuudu billaahi, ilaahay waxaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusina, nafafyaalkeena sharartoodii, wa sayi'aati acmaalina, acmaalaheena kuwooda xunxunkaa. man yahdihi allaahu, qofkuu ilaahay hanuuniya, falaa mudilla lahu, wax dhumin karaa ma laha. waman yudlil, qofkuu ilaahay dhumiyo, falaa haadiya lahu, wax hanuunin karaa uma sugnaanin. wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah, alla xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaahay maahane, waxdahu, xaala uu keligiis yahay, laa shariika lahu, wax shirkina uusan markaa u sugnayn. wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan, nebi muxamed, cabduhu, addoonkiisa inuu yahay, iyo wa rasuuluhu, rasuulkiisii markaa uu soo dirsaday, sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi, naxariis iyo nabadgelyo korkiisii asxaabtiisaba allah yeeliy, ehelkiisa iyo waman tabicahum, intii ku raacday biixsaanin wanaagga ilaa yowmi ddiini, ilaa maalinta qiyaama. wasallama tasliiman kaiira, nabadgelin badan ilaahay ha badbaadiya. amaa bacdu, intaa kadib ayuu yidhi imaamka kitaabka qoray, fahaada midkan mukhtasar, waa mid yar oo la soo gaabiyey. fahaada midkan gacanta aad ku haysatee kutubkan yar ah, mukhtasar, mid mukhtasar ah waaye. ikhtasartuhu, waxaan ka soo gaabiyey buu dhahay imaamka, min kitaabi, kitaabkayga lagu magacaabo addikru waadducaa'u, xuska iyo baryaha, iyo walcilaaju, isu daaweynta, biruqa min alkitaabi waassunna, iyo waasunnati, sunnada laysku tufo iyo kitaabka iyo sunnada ka sugnaaday. ikhtasartu, waan soo gaabiyey fiihi, kitaabka dhexdiisa, qisma aladkaari, xusaska qayb ka mida, liyakuuna, si uu u ahaada kitaabka ayaan u gaabiyey, khafiifa alxamli, mid xambaaritaankiisa uu khafiif yahay, fi lasfaari, marka safarada iyo socodka markaa lagu jiro, inuusan qofka cuslaynin, uu noqdo mid yaroo gacanta lagu qaadan karo, jaabka la gashan karo, boorsada lagu ridan karo. saasaan markaa ugu talagalay, liyakuuna khafiifa alxamli, xamligiisa mid khafiifa inuu noqdo, fi lasfaari. waqad ikhtasartu,
waxaan ku soo gaabiyey buu yidhi calaa matni dikri, sheegitaanka matnigiisa. waktafaytu waxaan uga gaabsaday oo aan kuga kaaftoomay fii takhriijihi, soo saaridiisa bidikri masdarin, hal masdar xusidiisa aw masdarayn, ama laba masdar. waa meesha xadiidka uu ka soo fulay oo mimaa wujida fi lasli, midka asliga laga helay ah. waman araada, qofkii doona macrifata asaxaabiyi, saxaabiga aqoonshasadiisa, qofkii raba saxaabiga xadiidka wariyey inuu ogaado, aw ziyaadata, ama ziyaado raba fi takhriiji, takhriijka iyo soo saaridiisa wax ziyaadaa qofkii ka raba, facalayhi birujuuci, waxaa korkiisa ahaaday inuu u noqdo ila alasli, asalkii meesha laga keenay. waas'alu allaha, ilaahay ayaan su'aalanayaa caza wajalla, caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye, biasmaa'ihi alxusnaa, magacyaalkiisa fiican iyo wa sifaatihi alculaa, sifooyinkiisa sarsareeyan ku su'aalana an yajcalahu, inuu ilaahay ka dhiga khaalisan mid baraxla oo khaalis looga dhiga liwajhihi lkariim, wejigiisa kariimkaa. wa an yanfacaniya bihi, inuu igu anfaco kitaabkan fii xayaatii wa bacda mamaatii, noloshayda iyo geerideyda ka gadaal. wa an yanfaca bihi, inuu ilaahay ku anfaco kitaabkan man qara'ahu, qofkii akhriya, aw tabacahu, ama daabaca, aw kaana, amase sababan, sabab u noqda fii nashrihi, inuu faafo. innahu ilaahay subxaanahu nasahnaaye waliyu daalika, arrintaa ayuu weli u yahay, waalqaadiru calayhi, waa mid kari kara. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi waasxaabihi iyo waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin. intaba ilaahay naxariis iyo badbaado ha siiyo waaye. fadlu dikri, waxaan ka gelaynaa meeshaan dikriga intaanna loo tilmaamin xusida ilaahay iyo sida loo xuso. marka hore waa inaan ogaano fadliga uu leeyahay haddaan ilaahay xusno subxaana wa tacaala. qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yidhi, fadkuruunii, ixasuusta, adkurkum, aan idin xasuustee. ixuso oo mar walba tasbiixdayda iyo tahliishayda iyo dikrigayga wada, anigana waa idin xasuusanaa. qofka in allaala inta uu ilaahay xusaayo, ilaahay wuu xusayaa subxaana wa tacaala. washkuruu lii, igu shukriya buu dhahay ilaahay, walaa takfuruuni, hana igu kufrinina. yaa ayuha aladiina kubii aamanuu, ilaah rumeeyayow, udkuru llaha, ilaahay sheega oo xusa oo mar walba afkiina iyo qalbigiina ha ku jira dikran kaiira, xusitaan badan ayuu dhahay ila subxaana wa tacaala. dikriga ilaahay waa cibaadada aan xadidka lahayn ayay ka mid tahay. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi, udkuru llaha dikran kaiira, wax badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala. haddaad salaada gudataan, faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illahi wadkuru llaha kaiira, wax badan ilaahay xusa. wاdhaakiriina allaha kaiira wاdhaakiraat, wاdhaakiriina allaha, kuwa ilaahay xusa kaiiran wax badan oo ragga ah, iyo wاdhaakiraati, dhaakiraadka wax badan ilaahay xusoo dumarka ah. acadda allaahu, ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran cadiiman, ajir cadiima oo weyna ayuu ilaah u diyaariyey. wadkur rabbaka, rabbigaa ku xus fii nafsika, nafsadaada dhexdeeda, tadarucan, adigoo u tadarucaya ilaahay, wakhiifatan, adigoo cabsanaya ama qarsanaya, waduuna aljahri, jahri sukadeedoo kor ha u qaylin markaad ilaahay xusaysa, min alqowli, qowlka bilguduwi waalasaali, subax iyo galabba ilaahay xus. walaa takun min alghaafiliin, dadka hilmaansan ee ghaafiliintana ha ka mid noqonin. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulkuna wuxuu yidhi, mathalu aladii, kii tusaalihiisa, yadkuru rabbahu, rabbigiis xusaya, iyo waladii midka laa yadkuru rabbahu, rabbigii aan xusaynin, mathalu alxayi waalmayiti, mid dhintay iyo mid nool ayay mathal ahaan iskula yihiin. qofka rabbi xusaya waa qof xayi ah oo nool, qofka aan rabbi xusayn waa qof mayid ah, haba noolaadee, mayd adduunka socdo waaye. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu kaloo yidhi, alaa unabbi'ukum, ma idin waramaadadow, bikhayri acmaalikum, acmaalihiina kuwa u khayr badan, wa askaaha, ugu tahiran, cinda maliikikum,
boqorkiina agtiina wa arfaciha ugu kor qaadid badan fii darajaatikum darajooyinkiina camalada lagu kor qaado ma idiin sheegaa wa khayrin lakum idinkagana khayr badan min infaaqi dahabi waalwaraqi inaad sadaqaysataan ood bixisaan dahab iyo qalin wax idinkaga khayr badan ma idin tusiyaa oo weliba wa khayrin lakum idinkaga khayr badan min an talqow inaad la kulantaan cadowakum cadowgiina oo fatadribuu aad goysaan acnaaqahum qoorahooda oo wayadribuu ayaguna ay gooyaan acnaaqakum qoorihiina inaad jihaad gashaan ood gaalada si fiican u baabi'isaan idinkana aad ku shahiidaan oo qooraha ay idinka gooyaan camal idinkaga fiican ma idin tusiyaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii bala nacam yaa rasuul allah macnaha na tusi inaadan na tusin iska dhaafee na tusi waaye qaala rasuulku wuxuu yidhi dikrullahi tacaala ilaahay xuskiisa waaye subxaanahu wa tacaala inuu qofka ilaahay xuso waaye wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu dhahayaa ana anigu cinda danni cabdii bi addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala ana anigu cinda danni male agtiisa ayaan ahay cabdii addoonkayga bi ani uu imalaysto qofaad arkaysaa wax khayr maba samaysanine waxaan ka mid ahay dadka ahlu naarkan ay ila tahay saasaan u malayna maca daalika qof walbaa wuxuu alla agtiisa ka malaystay ayuu leeyahay wa ana macahu anigaa micigiisa ahoo la jira idaa dakaranii markuu ixusaayo mar walbuu ixuso anaa micigiisaabuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala ilaahay micigaaga wuxuu ku noqonaa mar kasta markaad xusaysa fain dakaranii hadduu igu xuso fii nafsihi naftiisa dhexdeeda dakartuhu fii nafsii naftaydaan ku xusaabuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala wain dakaranii hadduu igu dhex xuso fii mala'in jameeca dhexdooda koox lagu dhex jiro ayuu igu dhex xusay dakartuhu aniguna waxaan ku xusaa fii mala'in jameeco oo khayrin minhum ayaga ka khayr badan waa malaa'igtee wain taqaraba ilaya hadduu iigu soo dhowaado xaggayga addoonkayga shibran haltaaka uu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraacan diraac baan u dhowaadaa buu dhahay ilaahay waa dhudhun haltaakaad ilaahay u dhowaatay diraac iyo dhudhun buu kuu soo dhowaadaa waxaa loola jeedaa wax yar oo cibaadaha hadduu sameeyo wax badan oo naxariisa ayaan anigana ula dhowaadaa wain taqaraba ilaya diraacan hadduu diraac ii soo dhowaado waa hal dhudhune taqarabtu ilayhi baacan baac ayaan u dhowaadaa waa gacan kaamil ah wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi asagoo soconaya ataytuhu waxaan ugu tagaabuu dhahay ilaahay oo aan uga hortagaa harwalatan orod haddii wax yar oo cibaadaa uu sameeyo looma dhibaato gelinayo socod badan inuu naxariista alla uu ugu gaaro anaa ka hortaga buu dhahay ilaahay naxariistayda ayaan ula hortagaa wa can cabdillaahi bin busrin radia allahu canhu cabdillaahi bin busrin ilaahay ha ka raadi noqdee ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa qad kahurat calaya korkayga way ku badataye fa akhbirnii bishayin shay ii sheeg buu dhahay atashabbahu bihi aan ku dhego shay hal mar aan qabsadoon ka foqin ii sheeg waxyaabaha sharaa'icda ah ama qaybaha islaamka way ugu badatay hal qayb oon xoogga saaro oon ku liibaano oo aan ku dhego rasuulkii allow ii khabar qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaanuka carabkaaga radban inuu u qoyan yahay min dikri illaahi ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala carabkaaga ilaahay xuskiisa ha u qoynaadoo mar walba wad dikriga ilaahay carabkaaga yuusan ka joogsanin qoynaanshaha waxaa loola jeedaa mar walba ha ku jiro ilaan haddii laga waayo asagoo ka qalalay ayay la mid tahay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qara'a qofkii akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan falahu bihi wuxuu ku leeyahay halkaa xaraf xasanatun xasano iyo wanaag ayaa laga siinaa waalxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasano 10 ayaa loo laalaabaa oo 10 miisaalkeeda ayuu ku leeyahay buu dhahay nebiga axadka qur'aanka akhriya laa aquulu dhihi maaya alif laam miim ayaa xarfun xarf ah alif laam miim xarf waayo madhahayi buu dhahay nebiga walaakin alifu xarfun aliftu waa xarf wallaamu xarfun laamtu waa xarf wa miimu xarfun miimkuna waa xarf buu dhahay nebiga
alif laam miim haddaan isku daraa xaraf loo xisaabaa dhihi maayo. alif laam miim hadduu dhao alifta gooniya loogu xisaabaa waa 10 xasanaad, laamta gooniya loogu xisaabaa waa 10 kale, miimka gooniya loogu xisaabaa waa 10 saddexaad. alif laam miim 30 xasanaad ayuu ku leeyahay. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال wuxuu yihi عقبة خرج رسول الله rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay sala allahu calayhi wasalam, wanaxnu anagoo fi sufati sufadii markaa ku sugan qowladii ayaan ku dhex jirnay. asxaabu sufa ayuu ka mid yahay. sufada waa qowlo yar oo masaajidka agtiisa ku taaloo ducafada iyo masaakiinta tabarta la jiifan jirtay. faqaala wuxuu nagu yidhi ayukum yuxibu yaa jecel an yaqduwa inuu dheento kulla yawmin maalin kasta ilaa budxaan meesha la dhaho inuu aado, aw ila alcaqiiqi ama caqiiq meesha la dhaho, oo faya'tiya minhu uu kala yimaado meesha binaaqatayni 2 halaad ama 2 geel oo koomaawayni kursi waaweyn leh, fii gayri ismin walaa qatiicati raximi, ayadoo dembi la'aan iyo raxim goysma aan ku jirin. yaa jecel inuu subax walba intuu dheento budxaan uu taga ama caqiiq meesha la dhaho, oo 2 naaqadood waa 2 hale oo kursiyo waaweyn leh uu ka keensto asagoo dembi loo qoraynin. faqulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow nuxibu daalika, arrintaa waa jecelnahay. qof kastoo annaga naga mida waa jecel yahay inuu meesha aado oo 2 halood uu la yimaado uu soo qaato. qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa yaqduu muu dheenta axadukum axadkiin ila almasjidi masaajidka muu u dheento oo fayaclama uu soo bartuu ow yaqra'a soo akhriya aayatayni 2 aayadood oo min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa ku sugan, caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye, khayrun lahu way uga khayr badan tahay min naaqatayn 2 halaad. 2 halood way uga khayr badan tahay. wahalaaثun 3 aayadna khayrun lahu min 3 3 halaad ayay uga khayr badan tahay. wa 4 khayrun lahu min 4 iyo wa min acdaadihina min alibili, intii tira ahuu akhriyey oo geela ah way uga khayr badan tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu kaloo yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiista lam yadkur illaaha uusan ilaahay ku xusin fiihi maqcadkaa dhexdiisa waa golahuu fadhiistaye, kaanat calayhi min allaahi tiratun, ilaahay waxay u ahaanaysaa xaggiisa ninkaa korkiisa ay uga ahaanaysaa tira waa nadaama iyo qowmama iyo shalaay. waman iltajaca qofkii jiifta maldajacan makaanu jiif lam yadkur illaaha fiihi ilaahay uusan ku xusin, kaanat calayhi korkiisa waxay min allaahi uga noqonaysaa tiratun, nadaama iyo xasra iyo shalaay ayay markaa ku tahay waaye. meelo badan oo gola ayaan fadhiisanaa maanta, buuq iyo hadal aan lagu badiyaa, ilaahay ma lagu xuso. maalinta qiyaamo way imaanaysaa, maca daalika tiray kugu noqonaysaa iyo nadaamo, xasra iyo shalaay. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa qowmun qowma fadhiistaan majlisan majlis iyo gole oo lam yadkuru llaha fiihi aysan ilaahay ku xusin. meel walbood fadhiisata hal marba ha ahaatee subxaana allaahi ku dheh, sariirta markaad jiifata hal mar xataa ha ahaatee bismillaahi dheh. waa inaad hadalka iyo waxyaabaha kale aad ku soo dhex dartaa dikriga ilaahay. haddayse meel fadhiistaan qoom ilaahay aysan ku xusin, walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana aysan ku sallinin, ilaa kaana calayhim tiratun ilaah waxay u noqonaysaa korkooda nadaamo. fain sha'a cadabahum hadduu doono waa u cadaabayaa ilaahay, wain sha'a gafara lahum hadduu rabana waa isaga saamaxa subxaanahu wa tacaala. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qowm ma jira yaquumuuna istaagaya min majlisin meel ay fadhiyeen laa yadkuruuna allaha fiihi aysan ilaahay ku dhex xusin meesha gudaheeda say u fadhiyeen ay u buuqayeen oo dagaal iyo qabiilka sheekaysi iyo saasay xaaladu tahay ay ku jireen ay kala istaageen, ilaa qaamuu can mili ilaa way istaagayaan meeshii oo ah can mili jiifati ximaarin, dameer bakhtigiisa oo kale meeshii oo ah ayay ka istaagayaan. wa kaana lahum waxayna u ahaanaysaa xasratan nadaamo, shalaay markaa u noqonaysaa. intaa waa horudhac dikriga ilaahay iyo in rabbi la xusana la tusaaleeyey. waxaan ka gelaynaa amaakinta iyo boosaska ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala. midda ugu horaysa waa adkaaru istayqaadi min annawmi,
dikriga lagu xuso ilaahay qofka markuu hurdada ka soo kaco. waad u jiiftay caawoo dhan ayaad soo kacday, subaxdii maxaad dhahaysaa? waxaad dhahdaa alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuuru. alxamdu mahad lilaahi, ilaahay ayay u sugnaatay alladii allihii axyaanaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa, markaan dhimanay ka gadaal, wa ilayhi nnushuuru, kulanka iyo aruurkana xaggiisa ayuu markaa ahaaday. qofku marka uu hurdo waa xayaatabax yar oo ku meel gaar ah. allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha. ilaahay nafta ayuu qaataa taan dhiman hurdada lagu oofsadaa, fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt. ilaahay naftuu ka celiyaa intii meel lagu xukmaya, wayursilu alukhraa ilaa ajalin musamaa. nafta kale waa la soo diraa ilaa wakhtigeeda laga gaaro. mid ayaad ahayd waxaad kala ogeed malaa ilaahayaa xayaatada kugu soo celiye. mar allaala marka aad soo kacda hurdada, qaylo iyo buuq iyo dagaal ha bilaabin, muusig dhegaysashadiisa ha ku bilaabina. dheh alxamdu lilaah, ilaahayaa mahad iskale alladii axyaana, na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa, markaan dhimanay ka gadaal, wa ilayhi nnushuuru, xaggiisaa loo noqonayaa. waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah. ilaahay xaqnimo lagu caabudoon allaha waaxidka ahayn ma jira waxdahu, xaalo uu keligiis yahay, laa shariika lahu, shirki uma sugnaanin, lahu lmulku, mulki ilaahay buu u sugnaaday, walahu alxamdu, mahadna asagaa iskale, wahuwa calaa kulli shayin qadiir, wax walba alla kari kara waaye. waxaad ku dartaa intaa subxaana allahi, ilaahay ayaa nasahan oo ceeb iyo nusqaan aan lahayn. walxamdu lilaahi, ilaahay ayaa mahad iskale iyo faalo iyo ammaan. dadkoo dhan hadday mahdiyaanna waa mahadsan yahay, haddaysan mahdininna ilaahay waa mahadsan yahay, labada marba subxaana wa tacaala. walaa ilaaha ila allahu, ilaahay asaga aan ahayn ma jira. wallaahu akbar, ilaahay ayaa weyn. walaa xawla walaa quwata ila billaah, walaa xawla, xeelad iyo tab iyo caqli aan xumaanta uga leexda melihi, walaa quwata, awood aan diinta ku raaca melihi, ilaa billaah, inuu ilaahay igu saacido maahana. allihii alcaliyi alcadiimi, sareeyey oo weynaa ee rabbi kfir lii, ilaahayow ii dembi dhaaf. sidaana waad dhahaysaa markaad hurdada ka soo kacda. waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii, ilaahay ayaa mahad iskale, jasadkayga ii caafiyey, waradda calaya ruuxii, ruuxdayda korkayga ku soo celiyey, waadina lii bidikrihi, dikrigiisana ii fasaxayo markaa ii idmay inaan asaga markaa xuso. ilaahay yaa mahad iskale, alladii caafaanii fii jasadii, jasadkayga caafimaad ii siiyey, waradda calaya ruuxii, ruuxdayda ii soo celiyey. waayo dad badan ayaan jasadkooda caafimaad qabin, musqulaha aan aadi karin oo la qaada, aan soo fadhiisan karin oo la fadhiisiyaa, aan wax cuni karin oo lagu qabaa. maca daalika waxaad dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii, waradda calaya ruuxii, waadina lii bidikrihi, dikrigiisana markaa ii fasaxay. 10 aayadood ee ugu dambaysa suurati aali cimraanna waad akhrinaysaa. ina fii khalqi asamaawaati waalardi, ileen aayadahan ilaahay markii nebiga lagu soo dejiyey, bilaal ayaa u yimid, habeennimaa lagu soo dejiyey nebiga. sidaa darteed bilaal ayaa u yimid oo ogeysiinayey salaada aadaankeeda. nebigoo ooynaya ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam. bilaal wuxuu dhahay maa yabkiika yaa rasuula allah, maxaa kaa ooyiyey? bilaal wuxuu dhahay aayado ayaa laygu soo dejiyey caawa, maca daalika iikoo kale aan arkin. weylun, halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriya oon ku tadabburin. halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriya oon ku tadabburin. waa ku soo celceliyey nebiga. aayadahana waa ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar, ilaa suuradda ay markaa ka dhammaato. ina fii khalqi asamaawaati, samaawaadka abuurkooda, iyo waalardi, arlada abuurkeeda, iyo waاkhtilaafi alleyl, isbedelka habeenka, iyo waannahaari, midda maalinta, la aayaatin, aayaad iyo cibrooyin ayaa ugu jira liuli lalbaab, dadka cuquusha u saaxiibka ah, dadka caqliga leh ayaa habeenkii maalinta isbedelkiisa, samaawaadka tiirla'aanta la taagay, arlada la goglay oo la fidiyey ugu sugan, iyo isbedelka habeenka iyo maalinta ulil albaab. yaa la yidhaahdaa ulil albaab? dadka caqliga u saaxiibka yeeyihiin dadka kala siyaaseeya miya? maya. dadka ganacsiga iyo bayc mushtarka si fiican u bartay miya? haddaana loo tilmaamaa aladiina yadkuruuna allah, waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman ayagoo taagan, wa qucuudan ayagoo fadhiya, wa calaa junuubihim,
iyo ayagoo junuubkoodii dhinac u jiifa, intaba ilaahay ayay ku xusaan subxaana wa tacaala. maxaa u sii dheer, wayatafakkaruuna waxay ka fakeraan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkii arlada qaab abuurkooda ayagoo dhahaya rabbanaa rabbigeenniyow maa khalaqta haadaa baatilan, kan baatil iyo cayaar iyo dheeldheel uma abuurin, subxaanaka adigaa hufan oo nusqaan aan lahayn, welad iyo saaxiibana aan samaysanine, faqinaa naga kori cadaaba annaari, naarta cadaabkeeda ilaahayow naga kori. dadka dhahaya waayo ulul albaabka ilaahay ayay xusaan ayagoo taagan, ayagoo fadhiya, ayagoo jiifa. waa saddexda xaalad oo insaanka uu ku sugan yahay. mar waa fadhidaa, mar waa taagantaha, marna waa jiiftaa. wax ka dhaxeeya malaha. qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ayay ilaahay ku xuseen. samaawaadkii arlada abuurkooday ka fakarayaan, wayatafakkaruuna waxay ku fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkan saan u waaweyn oo xoogga leh, tiir la'aanka la taagay, alle ka xoog badan inuu jiro abuuray og yihiin, iyo arlada sidaa ah. rabbanaa maa khalaqta haadaa baatilan, ilaahayow kan baatil iyo dheeldheel iyo ha iska ahaado uma samaynin, in la fiirfiirsado uma abuurin, ee in lagu caqli qaataad u abuurtay. subxaanaka ilaahayow adaa ceeb iyo nusqaan ka dheera, faqinaa cadaaba annaari naga kori naarta cadaabkeeda. rabbanaa rabbigeenniyow innaka adiga man tudkhili nnaara, qofkii naarta aad gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay. qofkiiba naar gala oo naarta aad ilaahayow ugu tala gasho, kaa waa u dhammaatay. wamaa lildaalimiina, daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara. daalimiinta wax kaalmeeya oo nasri siiya oo ilaa mtaqaana alla xaggiisa uga daalmeeya, intaasoo dhan markaa malaha. maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac, mid xamiima malaha iyo shafeeca la aqbala. rabbanaa innaka man tudkhili nnaara, ilaahayow qofkaad naarta gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay. wamaa lildaalimiina min ansaarin, daalimiinta wax u gargaaraa markaa uma sugnaanin. rabbanaa rabbigeenniyow innanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid munaadi ah, mid qaylinaaya, mid naadinaaya oo dhawaaqayo, yunaadii liliimaani, iimaanka dadka ugu naadinaaya, hadalkiisana uu yahay an aaminuu birabbikum, rabbigiin rumeeya. fa aamanaa waaba rumaynayba. isla markii aan maqlnay ma dhihin rumayn maxaa la dhahaa, rabbi maxaa la dhahaa? isla markiiba fa aamanaa waa rumaynay. rabbanaa rabbiyow faqfir lanaa, noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur oo qari oo naga tirtir cannaa xaggeena sayi'aatina gafafkeennii qaladaadkeena, watawafanaa na oofso oo na dil maca alabraari, annagoo baariyaalka micigooda ku jira. ilaahayow nafta naga qaad. watawafanaa maca alabraar, baariyaalka micigooda anagoo ah ilaahayow waana dil oo dadka ashraartee sharta badan anagoo ku dhex jirna, ilaahayow nafta ha naga qaadin. rabbanaa inanaa samicnaa waan maqalnay munaadiyan dhawaaqe oo yunaadii ku dhawaaqaya liliimaani oo dhahaya an aaminuu birabbikum, wa rabbigiin rumeeya. fa aamanaa waa rumaynay. rabbanaa faqfir lanaa, rabbigeennow noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur cannaa xaggeena sayi'aatina qaladaadkeenii gafafka naga dhaca, watawafanaa maca alabraari, baariyaasha micigooda anagoo dhex ah ilaahayowna oofso. dadka fujaartii qamri cabliyaalka ah, diinta alla ka durqee qayilaaya, shirkiga iyo macaasida iyo xumaanta ku dhex jira anagoo ku dhex jirna, ilaahayow hana oofsan, hanana dilin, waa khaatima xume. ilaahayow baariyaalka adig ku xuso oo diinka raaca, khayrka iyo wanaagga ku dadaalay, salaada dukanaya, khayrka ku dhex socda, micigooda anagoo ah markaa nagu dil, waa xusnulkhaatime. rabbanaa rabbigeenow waaatinaa nasiimaa wacadtanaa, waxaad noo yabohdood noo ballanqaaday calaa rusulika, ay calaa lisaani rusulika waaye, rusushaada carabkooda waxaad noogu ballanqaaday ilaahayow nasii oo jannada ah. walaa tukhsinaa, ilaahayow hana hoojinin yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo, waayo innaka adiga laa tukhlifu almiicaad, miicaadka mid guub yeelaa ma tihid, ballanada mid ka baxaa ma tihid. rabbiyow nasii ballanqaadkaad noo ballanqaaday, rususha carabkooda waxaad noogu ballanqaaday, ileen adi intaad noo timid nooma sheegin, rasuul ayaad noo soo dirtay, waa aaminay, waa rumaynay. ballanqaadkii rususha carabkooda aad noogu ballanqaaday nasii, hanana dulaynin yowma alqiyaama, innaka laa tukhlifu almiicaad. fastajaaba
wuu ka ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigood oo wuxuu yidhi annii anigu laa udiicu ma dayacayo camala caamilin shaqaale shaqadiisa oo minkum idinka mid ah. caamil camal uu qabtay ma dayacayo idinka mid ah, min dakarin aw unhaa, lab ahaaye ama dhadig, dakar waa wiil, aw unhaa waa naag, bacdukum gobolkiin min bacdin gobolka kale ayuu ka ahaaday, qaarkiin qaarka kale ayuu ka ahaaday. faaladiina haajaruu intii hijrootay oo wa ukhrijuu min diyaarihim guryahooda laga bixiyey oo wa uuduu la dhibay fii sabiilii jidkayga lagu dhibay oo wa qaataluu dagaalamay wa qutiluu la dilay, la ukafiranna dhaafee canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanyaalkoodaan ka dhaafayaa buu dhahay ilaahay, wala udkhilannahum waxaan gelinayaa jannaatin jannooyin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaala hawaaban waa abaalgud oo min cindi illaahi ilaah agtiisa ka ahaaday, wallaahu cindahu ilaahay agtiisa waxaa ahaaday xusnu hawaabi abaalgud midka ugu fiican. laa yagurannaka yaysan ku kadin rasuulkii allow taqallubu aladiina kubii gadgadoonkooda kafaruu kufriyey filbilaadi bilaada ay ku gadgadoomayaan, ganacsiga iyo bayc mushtarka dalxiiska ay bilaada u kala aadayaan, waayo mataacun qaliilun waa raaxa yar, uma ma'waahum jahannam intaa ka gadaal ma'wadkoodii hoyadkoodu waa jahannamo, wa bi'sa almihaadu gogolna jahannamo ayaa u baas leh. laakin